السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ee videogan wuxuu la socdaa videogayga hore oon soo geliyey oo ka hadlayay inuu Itoobiya wadan aan leenahay ay Itoobiya tahay. walaal oo falowgayga kamid ah dadka ila socda kamid ah baa wuxuu yiri iisoo qaray Itoobiya weligeed siin mayso u soo celin mayso dhulka Soomaaliya maanta qaybka ah Itoobiya. marka walaalka jawaabtiisii baan rabaa meeshaan inaan maaragtay kusoo duubo waxyaabaha aniga aan ka sameeyay videoyaashana waxa weeyaan waxyaaba anigu aan keensaday fikradaha dadku kale ay soo gudbiyaan oo iyaga laftigooda su'aalaha ay qabaan inaan iyagana uga sameeyo videoyaal uga sameeyo si wixii dadka Soomaaliya ay uga faa'iideystaan. marka su-aashaasaan ka jawaabaya hadda walaal su-aashaas horta jawaabteedu waxay tahay Itoobiya waxa weeyaan waa iyo Soomaalidu iyo Eritreanku isku dad baanu nahay asal ahaan isku dhul baan deganayn oo ku shaayt baa la isku dhihi jiray boqortooyaanu lahayn weyn oo ilaa Itoobiya Soomaaliya maxaan ku raadayay Eritrea maxaan ku raadayay Suudaan dadkaas oo dhan isku waxaan ahay iyo dadyow kale oo hadda maaragtay degan ama bariga Afrika ama degan sida Kenya iyo maaragtay ama degan muxuu ahay tidito waqooyiga Afrika ama West Africa waxaanu isla nahayn kushiitig baan isla nahayn waxaa kamid ah dadkan la yiraahdo Tutsiga iyo dadyow kale badan oo hadda ku yaacsan Afrikada bari ku yaacsan oo qabiilooyin ah waxaan la isla dhihi jiray kushaayt baa la isla dhihi jiray waxaan lahayn boqortooyaanu lahayn boqortooyada iyaduna waxay ku taalay wadankan Suudaan bay ku taalay waxaa la dhihi jiray boqortooyada kush baa la dhihi jiray kushaayt baa la dhihi jiray waxaanu haysan jirnay muxuu ahay jadiito isku haysan jirnay boqortooyada ka dhisnayd Masar ka dhisnayd Suudaan iyo xataa Masar baan haysan jirnay waliba Masar waxaan u diri jirnay gabdhahanagaan u diri jirnay oo boqortooyinka ahay meesha haysan jiray markay nimanku hayeen maaragtay ay hayeen muxuu ahay jadiito ay hayeen boqortooyadan Suudaan ku taal. marka waxa weeyaan dadkan waa isku dad waa ehel waa isku qabiil waa la isku diray waa la kala kaxeeyay markii Soomaaliya ay muslimiinta ay noqotay baa maaragtay la yiri waxay qorada tan iyagu waxa weeye qayb kamid ah Itoobiya waa Kristan waa gaal aan layno lagu yiri ma ogi dadku waa isku dad weeye. mida kale Itoobiya waxa weeyaan meesha muxuu ahay tirada asxaabta kow laga soo dhaweeyay waay wadanka koowaad oo asxaabta muslimiinta qaablay waa dalka Itoobiya boqorna Jaasi ninka qaablay buu ahaa boqorkii qaablay buu ahaa oo boqor kushiitig ah oo maaragtay boqor ah kushiitig ah waaye baa qaablay uu soo dhaweeyay waa wadan nabiga u duceeyo barakaysan weeye waxa weeye dadka isticmaalo cadawga ka dhigay Itoobiya waxay u isticmaalayaan qayb gaala ah baa kamid ah meesha macnaha islaamka laga soo maaragtay aad u taageertay waa dalkan Itoobiya weeye oo islaamka aad u faafiyay oo aad maaragtay muxuu ahay jadiito ugu faafay wadankan dadka meeshan jooga boqolkiiba bar waxa weeyaan waa muslimiin weeye dadka qaarna waa Kristaan oo Kristaan rasmi ah haystaan oo Kristaankii horeeta ah weligeed iyagoon kuwan wadamadan Yurub aysan Kristaan ku imaan biyo Kristaan ahaayeen marka waxa weeyaan Itoobiya waa wadan barakaysan weeye oo wadan u duceeyo nabigeena weeye dadka ku jira marka Soomaalidii horeeto waxa weeyaan Soomaalidii horeeto oo Soomaaliga asalka ahaan jiray oo qabiilooyin badan oo Soomaali ah baa Itoobiya u galay oo hadda maanta Itoobiyaan ah oo laga arkayna ama Oromadii ku jiraan ama Xaaradii ku jiraan waxay ku jiraan muxuu ahay jadiida dadka kale qabiilada kale ee Itoobiyaanka ay dhex galeen oo ku milmeen. marka dadkaani nuskood waa Soomaali xataa asal ahaan dad badan oo Soomaali Oromada haaf baan saddex meelood meel waa waxa weeye Soomaali asal sidoo kale ama Xaarada xataa marka dadkan walaalaanahay anigu taa waxaan ogaaday markaan taariikhdan raadiyaa taariikh badan markaan raadiyay ayaan ogaaday
oo waxaa la rabaa in cadowna looga dhigo muxuu ahayd la isticmaalayo waa gaalo waa kida waa saas marka midaan ah wadan soo celinta dagaal baa dhex maray Soomaaliya iyo Ethiopia 77 dagaalkaasna dhib iyo khasaaro badan buu keenay dad walaalo ah baa isdagaalay wax loo baahnaana ma aha waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin waa ehel iyo walaalo waxay u baahan yihiin inay wada noolaadaan muxuu ahayd wada jir sameeyaan iskaashadaan muxuu ahayd wadamada tan aanu leenahay dhan in la horumariyo weeyaan waa muxuu ahayd in cadow uu maaragtay na dhex galo oo colaadna dhex dhigo oo dhexdeena maaragtay na kala qaybiyo waa inaanu iska ilaalinaa Ethiopia cadow maaha wadankaana Soomaalida degani saan kii horeba fiidiyowga hor u sheegay waxaa la rabaa wadanka Ethiopia inay dhex galaan inay muxuu ahayd shaqooyinka muxuu ahayd ka socda dalka meel kasta ay dhex galaan ay qabtaan muxuu ahayd mid hoose iyo mid koraba wadanka ay wadankoodii ka dhigtaan Soomaalida Ethiopia degan waxaad moodaa si gaar ah in isaga dhigto oo gaar isaga dhigto aysan ka ahayn qayb waxa ka baxa wadanka waxa weeyaan maanta nin kushiitig ah baa haysta wadankan Abiy Ahmed waa nin kushiitig ah asalkiisina muslim u yahay waxa weeyaan ninkaas maanta in la taageero weeye muxuu ahayd maanta waxa waaye dadka kushiitiga baa waxa soo madaxtinimada soo maaragtay haysta dadka kale Ethiopia ku nool oo dhan waa walaalo iyo ehel weeye dadku waa isguursadeen waa isdhaleen waxa weeye waxa dhan waa kushiitig weeye waa reer kushiitig weeye marka waxaan u rajaynaynaa wadamadan oo dhan wadamadeena oo dhan waa wadamadeeni waaye waxaan u rajaynaynaa barwaaqo waxaan u rajaynaynaa dadkeena isku duubni waxaan u rajaynaynaa wanaag dhib iyo dagaal iyo shida marabno muxuu ahayd wada jir dadkeen ah oo dhan baan doonaynaa meel fog baa laga fikiraa ala walaalkii muxuu ahayd magaciisa Kenya joogo ka hadli jiray arrimaha Soomaaliya muxuu ahaa magaciisa haddeera laga wareysanay Ethiopia laga wareysanay isagoo Brabia u hadlaya aniga u hadlaayo buu hadlaayay hadday noo dhacato yiri kushiitiga dadkan ah waa ina iskaashada arrinka farmaajo lagu ceersanayo la leeyahay oo farmaajo muxuu Ethiopia u aaday oo muxuu Eritrea u aaday farmaajo nin wax bartay waaye waa nin educated ah wuxuu og yahay waxa naga dhaxeeya inaan isku dadnahay inaan walaalanahay cid kale oo annaga noo dhow oo Soomaali la qabiil aan isku dhignahay ma jirto aan Ethiopiaanka iyo Eritrean ka ahayn iyo Suudaanta qaarkeed iyo muxuu ahayd dadka isku dad baanu isku ehel baanu waa dadka adduunka aan isku dhownaa walaalahanahay oo isku meel ka soo askunay waxaanu nahay dadkii adduunkaba uu ka bilowday oo bini aadamku meesha uu ka bilowday waa maaragtay waa Ethiopia Soomaaliya waa dadkan walaalaha awey intaasaan ku soo koobayaa fiidiyowada dheer ma jecli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii war ii soo dira hadda meeshana share like iyo wax kasta saar assalaamu calaykum